السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كل وعن وهاجسن ميل بانجا دهانيسان كسر هذا برنامج كسويالك نولشة أو برنامج تضوادلا إسلام مركزنا كديهاتان تضواد كيبه مانتو كله مقبية مقدشة كيبل تي في برنامج كنا مانتا وحا مرتيوه قدوميها أوركا سمفلك مدنمو مستر علي حسن محمد أيا داوديال برنامج كمرتيوه oo muddada 30 daqiiqo hawada ku jirna daawadayaal aan weydiin doonaa su'aalo ku saabsan waxqabadka ururka iyo su'aalo kale oo aan filayo in ay idinka dhex guuxayaan maadaama ururkan uu yahay urur samafal isla markaasna shaqooyin kala duwan bulshadu qabta waatahay waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururka gudoomiye ku soo dhaw su'aalka nolosha iyo barnaamijka aan filayo inuu yahay barnaamij runtii dad badan ay wada sugayaan maadaama tahay gudoomiyaha ururka samafalka iyo midnimo soo dhow ما شاء الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ودي سلام يا أنت كنت حن جنال كان وحاسدو كلام هاد جارة عن أعلن يا جنال كمقدشو كيبل يا ولالكي محمد عبد الله وما شاء الله maanta yani booqasho xafiiskayga igu imaaday oo raba in maartay sida qaabkan yani u shaqeeyno inuu bulshada u bandhigo marka aad baad ugu mahadsantihiin sida wacan aad maartay insha Allah su'aalihii aad igu soo weydiisay waan u mahad celinayaa Muqdisho Cable boqolkiiba boqol waxay ka shaqeysaa horumarka bulshada ka shaqeysaa dadka aan maartay hadalkooda ama codkooda meel dheer uusan gaarin ay gaarsiisaa marka insha Allah aad baad u mahadsantiin baan leeyahay insha Allah waatahay gudoomiye anaguna waqtigaaga waan kaaga mahad celinaynaa waxaad gudoomiye ka tahay ururka samafalka midnimo bal ururkan anigii daawadayaashana bar ururkan waa urur nuucaya ما شاء الله ururkan waa urur samafal ah waaye ururka samafalka midnimo magaciisana sidaas baa la yiri kadib markii aan maxalli jiray aan isla falanqeynay yani erey walba wuxuu leeyahay turxan bixis buu leeyahay yani midnimo marka la yiraahdo yani kama soocno oo yani waa urur qabiileed ma ahan waa urur yani Soomaaliyo idil yani ay ka qayb qaadan karto una diyaara inuu wax u qabto yani dadkeena dhibaataysan dhinac walba ama qolo walba ay yihiin Soomaalinimadaasi ayaan ugu damqanaa marka ururkaasi sidaas ayaa maartay loogu bixiyay ururka samafalka midnimo waxyaabaha uu qabtana insha Allah kulli waan soo waxyaabaha uu qabto dib ayaan kaga imaan doonaa magacan ururka samafalka midnimo maxaad ku dooratay maadaama magacyo kala duwan ay jiraan magaca maxaa ku qaadasay ما شاء الله هذا ما سنتها محمد ururkan samafalka ee midnimo يعني magaca siisa balaas kama qaato oo waxa dhacaysa maarta ururo kale oo adiga macnaha yani magacaas oo kale leh marka in badan ayaa maarta laga shuureeyay marka midnimo marka la yiraahdo waa ittixaad yani markii wax ay isku yimaadaan al-ittixaad quwwa carabtu waxay yiraahdaan al-ittixaad quwwa markii yani la midoobo waxa imaanaya power awooda imaanayo marka saas darteedan maartay magaca aan u qaadanay in uu yahay magac awood badan oo insha Allah aan rajeynayno inuu maartay yani saameyn badan oo maartay oo yeesho insha Allah waxa marka goormeel asaas ururkan waxa la aasay 14kii ayaa la aasay 2014kii ayaa la aasay waxaana lagu aasay dad aad maartay u tiro yar dhalinyaro oo maxaa la jiray intooda badan maartay oo muruqmaal ah ama xoogood ku shaqeysata ah yani markii aan aragnay baahiyaad badan ayaa macnaha maartay aan aasnay ururkan 2014kiina ahayd adiga dhalinyaro gaaraysa ilaa 5 qofood ayaan maartay barnaamijkii ka dhaadhiciyay niyo maadaama ay jiraan dhibaatooyin badan ee ummadan ay qabaan hay'adihiisa samafalkana aysan maartay si durba aan u soo gaari kareenin oo baahiyaad qarsan iyo kuwa maartay aanan qarsaneyn bay kala yihiin marka saas darteed in macnaha aan u gurmadno dadkii maartay dhibaataysan sidaas ayaan maartay ku aasnay anagoo tiro yar insha Allah waatahay gudoomiye waxay sheegtay inaad 5 qof aad ku aasaasteen aragtida yaa lahaa aragtida ma sha Allah aniga lahaay aniga u soo bandhigay
dad aada isugu dhownahay oo asxaabteyda ah oo qaarkooda jaamacad isla dhameynay ayay ahaayeen. marka aragtida markaan usoo bandhigay iyagana maasha allah waa dad maarata mutacalimiin oo wax bartay, yani way fahmayaan, marka iyagana way ila qaateen. marka sidii maarata ururkii magaciisii iyo wixii aan u fariisanay aan kusoo saarnay, sidii maarata hawsha ay ku bilaabatay alxamdulilah ilaa iyo hadeertaan way socotaa maasha allah. waa tahay 2014 waa waqti dheer, iminkana 2021 la joogaa. tirada aad ku aasaasteen maadaama 5 qof uu ahaa, iminku 2021 ururka xubnihiisa imise ay gaarayaan? maasha allah alxamdulilah hadeertaan ururka xubnihiisa ilaa iyo maarata waxaan gaaraynaa ilaa iyo 15 ayaan maarata hadda gaaraynaa. waxa waaye in badan culeysaad badan ayaa iska jira, waa dareemi kartaa marka yani dhaqaalo xumo iyo ay meesha imaato. waa tahay adoo maase dhaqaalaha waa u maanaynaa marka 15 haddii manka maraysin. waa tahay cali xasan, wax walba markii la sameynayo waa la iskaga imaadaa, waa laga fadhiistaa, afkaaraha iyo aragtidana waa la wadaagaa. adigu waxaa tahay guddoomiyaa tahay, guddoomiyaha ururka kuu doortay mise adaa isku dooratay? maasha allah aada u mahadsan tahay maxamedow. yani qof isaga le is doortay waxaa waaye horta maba shaqeynayaba. maasha allah markii aan kulannay aan wada fariisanay barnaamijkaanaan maarata usoo bandhigay, kadibaa waxaa la sameeyey codeynaa la sameeyey. waxaa la yidhi yaa xoogoo yani yaa ugu roon bulshada xaggeeda oo civil society-ga iyo maarata bulshada xiriirkooda. markaasaa maarata tartanaan u galnay, alxamdulilah anigaa kusoo baxay, anay i doorteen. waxay yidhahdeen maadaama adiga iyo araadii ra'yigii wixii dhan aad keentay, haddana maasha allah tartan baa lagu gelinayaa. marka tartankii aan kusoo baxay alxamdulilah, maxaa yeele qofka hadduu niyad saafiya uu leeyahay, allah subxaana watacaala mar walbo isagaa maarata dariiqa saxda ku toosinayo. marka saas darteeda macnaha guddoomiyihii aniga leegu doortay. maasha allah ilaa iyo hadeertaana waxa waaye waa way socotaa hawshii alxamdulilah, marna ma hakanin. waa tahay waqtigii lagu doortay ilaa iminka doorasho kale miyaad gasheen mise weli adaa guddoomiyaha? mar kalean doorasho la isugu imaaday, adiga 2 sano kadib macnaha doorashaa la sameeyaa. haddana mar kale anigaa kusoo baxa haddana doorashadii oo la sameeyey. markay arkeen in yani qaabkaan u shaqeynayo iyo dulqaadkayga iyo samirkayga, mar kale aniga haddana lagu soo celiyey. marka sidii aan maarata maasha allah aan kusii wadaa. aad kusii wadaa. waa tahay magaciyaa la sameeyey, xubniyaa la sameeyey, adigaa guddoomiyaha 2014 la asaasay. waan filayaa daawadayaasha intaas inay nala jaan qaadeen. waxaan u maanaynaa sida magac ururka uu yahayba waxaad qaateen samafal ayaa qaateen. samafalna qof walba markii durbaba uu maqlo waxaa kusoo dhacaysa dad la caawinayo, dad la gacan qabanayo, dad tabaalaysan, dad liita, dad buko, dad intaba caawinaad kala duwan u baahan. intii ururkan uu dhisnaa ilaa iminka maxaad qabateen? maasha allah maxamedow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay adiga iyo daawadayaasha. ururkan waxaa la aasaasay 14kii ilaa iyo hadeertaan. waxyaabaha ururkan uu qabtay lama soo koobi karo. anagoo aanan ahayn yani dad maaragtay oo dad fangareynayo oo as voluntary ahaan u shaqeynayno, ayaa haddana waxaan maaragtay yani u istaagnay wixii ay qaban lahaayeen hay-adaha caalamiga ay qaban lahaayeen. tusaale ahaan haddaan kaaga soo qabto 15kii oo kale maasha allah waxaa cuduro baahan ay ka dhacay deegaan ka tirsan maaragtay shabeelaha hoose oo lagu magacaabo dhanaane. cudur shuban biyood ayaa meeshaasi yani ka qarxay. meeshana meel aan MCH xataa ku yaala ma ahan, isbitaal iska badaaye. qofka intii lasoo wado oo wadada uu soo socdo maaragtay fuuqbax u dhimanaya. marka alxamdulilah faleebooyin iyo cirbado iyo wax baan maaragtay u qaadnay alxamdulilah. kadib markaan meesha geynay waxay u baahdeen yani dhakhtarkii, maxaa yeele dadkii dad oo aqoon leh ma ahan. meel iskuul oo maaragtay yani wax lagu baranayo ama caafimaad lagu baranayo male. xarun caafimaad oo maaragtay dadkii maaragtay helbi garaysa ama keer garaysa meesha ma yaalo. marka saas darteeda yani haddana waxaan ugu sii darnay in aan ku fangareyno qof yani maaragtay caafimaadka yaqaana ama dhakhtar ah inaan meesha u dirno oo sidii maxaa la dhihi jiray yani dadkii uu u samata bixiyo. alxamdulilah waana lagu guuleystay. muddadaas uu dhakhtarka meesha joogay
ugu yaraan dad gaarahayo 20 iyo 30 qofood ayuu maaragtay yani maaragtay shuban biyoodkii uu ka daaweeyey alxamdulilah falilahi alxamd walman bacdayn haddana maaragtay tuulo oo tuulooyinka ka mid ah iyadana dhanka iyo shabeellaha dhexe ayaa waxaa dhacday in macnaha waxaa laga soo sheegay iyagana inaysan waxbarasho iyo waxyaabahaas dhan uusan maaragtay aanan lahayn waxay ahayd maaragtay 16kii ahayd 16kii 2016kii marka waxaan u sameynay yani lacagaan inta isku dardarnay dhalinyaradeena oo yareed oo markaas oo 5 qofood gaaraysay bishii $5 ayaan inta iska qaadno aan isku aruurino $5 isku darno ayaa maxaa la jiray waxaan gadaynaa buwaagtii haddana mar kale wax baan iska aruurinaynaa sabuuradihii iyo wixii idan kadib sidii aan macnaha maaragtay macallimiin meesha ugu qabanayna oo deegaanka ah oo far Soomaaliga iyo xisaabtii meeshii yani ku bara marka alxamdulilah iyagana waa lagu nimcoobay haddeertaan waaba dad maxaa la jiray wax qorahayo waxna aqrinahayo isla tuulo kale iyadana maaragtay shabeellaha hoose sidoo kale waxbarasho daro oo sidaas maaragtay loogu soo sheegaa jirtay iyadana ardaydu waan farxad gelinay agabkii waxbarashada iyo macallimiintoodii iyo wixii oo dhan maaragtay meesha ka bixinay ilaa ay ka bartaan gacanan ku heyno bil walba maaragtay anaga jeebkeena ka bixinayni min $5 iska qaadinay shanteeni dhalinyaro marka wax qabadka haddaan usoo laabano dhanka muqdisho kale adiga maaragtay 17kii iyo 18kii inta u dhaxayso 2017 waxaa noola soo wargeliyey caruur gaarayso 10 canug gaarayso oo agoon ah 10 gaaran agoon waaye hooyadoodana asaaya u saaran ilaahay kuma darnaadee iyaga laba habeen iyo laba maalin aanan maaragtay wax cunin waxna cabin waan u tagnay waa kormeernay waxaan aragnay inay aad u dhibaataysan yihiin markaasaan inta ururkii macnaha isugu wacay ayaan wax maaragtay ka aruurinay idan kadib sidii macnaha caruurtii bal yani waxay cuni lahaayeen iyo waxay maaragtay aan usoo adeegnay alxamdulilah xataa waxay ahaayeen joodari la-aan iyo wax la-aan joodariyaal aan usoo qaadnay alxamdulilah haddeer waa dad maasha allah oo arrinkaas ka sheekeynayo alxamdulilah yani waxtarkaasi ilaadan oo maaragtay ku ammaanaya ururka marka weli waxaa kaloo sii jirto waxyaabo badan oo yani halkaan aan lagu soo koobi karin oo macnaha oo yaryar iyagana waa jiraan sidoo kale dad maaragtay oo naafa ah oo gawaari aan u gadnay oo gawaari gada waayey ayaa jirto oo iska guurguuran jiray gaaridii oo maanta yani ay ku socon lahaayeen ma haystaan sariirta iyo waxay u dhaxeeyeen bis sariirta laga soo dejinaya dhulka lasoo maaragtay lasoo fariisinaya halaasay ahaayeen markaasaan gaarigii maaragtay yani lagu qaadahayay ayaan maaragtay u sameynay maasha allah marka waxyaabahaas iyo waxyaabo kale adiga maxamedow insha allah halkaan laguma soo koobi karo insha allah marka waxaan jeclahay in halkaas kusii okeeyo insha allah waa tahay dhanaano iyo dabcan iyo shabeellaha dhexe iyo muqdisho intaba shaqooyinaha ka qabateen dadkii aada aragteen dhammaan maadaama samafalaatihiin caawinaad intaas ka baxsan ay u baahan yihiin sii dareenteen maadaama adinku intii dabcan aad samey kartiin aad samayseen maadaama u samafalaatihiin dadkaas haddii lagu yiraahdo falanqeyn ama faahfaahin dheeraad ka bixi dad noocay u yeelin wallaahi dadka halkaa degan horta waa dad aad yani maaragtay isiga dhibaataysan oo yani tuuladaas oo kale wax horumar ah oo macnaha yani oo dhankan magaalada ka gaara ma jirto aad bay ugu fog tahay muqdisho kale yani iskuul ma laha ilaahay kuma darnaadee hal dugsi qur'aan bisa meeshii ku yaalay isaga naftiisa burbursanaa oo xataa ay naga dalbadeen ay naga codsadeen in dugsiga aan u dhisno anagana waa dareemi kartaa dad yani tiradooda aad u yar tahay haddana oo waxay shaqaystaan $3 maanta haday helaan $1 macnaha maaragtay meel u dhigaaya waa dareemi kartaa marka anaga waxaan dhahnay dugsigii ma awoodi karnay inaan dhisno hase yeeshee waxaan sameynaynaa aan dhahnay in yani geed hoostiisa in macnaha ardaydii bal in wax lagu sii baro intii macaan la jiri yani oo dad kale oo walaalo ah iyagana jecel inay khayrkaas ama wax ku darsadaan marka waxaan sameynay qeylo dhaamin aan sameynay maanan ku guuleysanin oo yani oo dad kaloo jaaliyado oo dibadaas jiro inaan u qeylo dhaamino oo si dugsiyadaas maarata loogu dhisi lahaa
marka iyadana maysan suurtagelin marka sidaa bay ku dhacday baahiyaha way iska badan yihiin maasha Allah waxay u baahan yihiin MCH oo kale u baahan yihiin waxay u baahan yihiin maxaa la dhihi jiray yacni goob waxbarasho oo weyn oo maasha Allah ciyaalkii primary iyo ay ka bartaan waa u baahan yihiin marka waxaan rajeynayaa kulley in mustaqbalka markii yani warkeena ama la maqlo in yani maaragtay arrintaasi nagala saacidi doono ama nagula buushgareyn doono si aan yani baahiyadaasi insha Allah wax ka mid ah ugu dabooli lahayn insha Allah. halkee xafiisniya wallaahi xafiis yani hadda oo gaar ah anaga aan leenahay ma jirto laakiin maxaa la dhihi jiray iskuulkan oo يعني قيبنا علم لوجو دقايو وقتنا محل ديجري أو لوجو شقي بولشدة سكول كان بريفت كا يعني قيبنا ما رتي وحال لوجو دقا عرورة لوجو فائدية سي فولنتريا أيا لوجو فائدية ما شاء الله وحكمتي هذا وحيابي ما رتي أي قبتين محل ديجري أوروكا حقبت كيسي أو كميدي هاي سكول كاني عرورة سي فولنتريا أيان ما رتان يعني وحكو برنا صوماليكا يا إنجليش كان يكو برنا سي فولنتريا wax lacagaad oo laga qaadana ma jirto marka qaybna waxa waaye xafiis ahaan oo ugu shaqeeya maadaama aanan hadda xafiis u gooni ah ururka aanan lahayn dhaqaale xumo awgeeda ama dhaqaale xumo badan ama aad u baasan ay jirto maxaa yeelay anaga meelaan ku tiirsanaa malan Allah subxaanahu wa tacaala ayaan ku tiirsanaa oo kaliya mar walba jeebkeenaan galnaa haddii aan u baahano inaan kulamo ama meelo ka qayb galno ama meeshii la tegaayo nafteeda waxay u baahan tahay transportation marmar waxaa dhacdaba in transportationkii la isweydiiyo wareedho ma haysaa la yiraahdo oo xataa iska lugeyno sometimes dhacayso anagoo dad diyaar rabna inaan saacidno haddana aan sii lugeyno marka maxaa yeelay mar walba baahidaada maaragtay lama fiiriye baahida walaalkaaga ayaa la fiiriyaa oo waxa kan kaa hooseeya fiiriyo dhahay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ha fiirin kan kaa sareeya ha fiirin marka sidaas maaragtay barballeemkaas dartiisa ayaa wuxuu sababay in yani inta si ku meel gaar ahaan aan ugu shaqeyno intaan xafiiska yeelino insha Allah. waa tahay gudoomiye Cali Xasan ururada ka jira caasimadda ama kuwa gobolada ka jira ama urur walba oo jira ururada kale ayuu xiriir leeyahay idinku ururkiinaan maadaama dhalinyaro tihiin 15 qof ay tihiin ururada kale ee magaalada ka jira xiriir ma leeyihiin maasha Allah maxamed oo aad iyo aad u mahadsan tahay horta dadaalo badan ayaan ku bixinay inaan ururadii iyo maaragtay qaarkooda ama hay'adaha qaarkooda aan isku dayno inaan la xiriirno laakiin waxaan u maleysaa arrintaas in aysan noo suurtagelin nala xujeeyey waxyaabo badan nagula xujeeyey iska daba wareeg iyo waxa nala geliyey oo maaragtay marka waxaan dareena marka culays yani oo xagga marka waxaan door bidnay bal in anaga nafteena aan hay'adii isku dhaqano maanta $3 adiga ay haysid oo aad maaragtay $1 ay ka keentid ninkan wuxuu haay isan wax ka keeno wixii aan isku darno qofkii walaal oo maanta daran oo maaragtay oo abaadkiisa ama dhibaatadiisa ama baahidiisa ay yani ay over tahay inaan maasha Allah u tagno sida tusaale ahaan dad badan waxaan aragnay oo adaati maaragtay hadalkan kusoo qaban dad badan waxaan aragnay wallahi alcadiim $100 u dhibaateysnaa $100 oo isbitaal lagu geeyo u dhibaateysnaa baan aragnay markaas lacag isku darnay waa qabanay familkiisii oo dhahayo anaga isbitaal lacag uma hayno sidaa darteed inta lagu daaweynaya maxaa ku daaweynaysid dhakhtar maatiin idinka waa wadnay isbitaalaan geynay wuxuu ahaa canug oo maasha Allah biyo maaragtay ku jiray biyihii adiga alxamdulillah waxaan maaragtay ku baxday ilaa $400 waxaana bixiyeen ururka midnimo maasha Allah ilaahay khayr Allah siiyo wiilkiina maasha Allah hadda waa shaqaysanayo ayishma anagoo hay'ad iyo aan dawlad ama maaragtay hay'ad international maaragtay AIDS aan waxba u dirsanin ayaa anaga alxamdulillah ilaahay noogu saaciday ilaahay baa noogu saaciday marka taas darteeda maaragtay kaliftay waxaa ka dhawaajisay ama soo hadal qaaday in ku biirista ururada kale ama xiriir inaad la sameysaan xujooyin adag in la hordhigo hadda dad badan dabcan ku daawanaya haddii hal iyo laba aad ku xusto ما شاء الله هذا وما سنتها محمد يعني وحان نقول حجيي يعني إن ميلا أو يعني أو حرمة يميلها سمارت عن كلنا هاي قبل هذا يميلها سوكله أو إذل أنا جانا ودريبي كرتا دلنا يرى أو مركز يعني إسحل قانتي يعني أو جيب كودي وحول بوكبحويو
oo ninka maanta yani baabuur raacayo transportation uu u baahan yahay oo aanan loo haynin hadda in macnaha meel oo gobol la geeyo oo intaad ka shaqeeya la yidhaahdo oo waxna aadan qofka aanan u haynin taasi marka waxa waaye yani culays oo macnaha jiray noqotay laakiin haddii aan meel ku tiirsannahay markaasi xarumo badan ayaan yeelan karnaa marka maxamedow taasay ku dhacday waxaan nagula xujeeyey in goboladaasi aan xafiis iyo waxyaabaas aan ku leenahay oo shaqooyinka aan maarata gobolada aan kasoo qaban aan soo bandhigno iyo waxyaabo badan oo maaragtay oo dhanka macnaha maaragtay qarashaad badan u baahan oo kale aan nagula xujeeyey marka saas darteeda yani maaragtay connectionkii oo hay-adaha kale oo noo suurtagel aada u gaabisan iskuulka iminka aan dhex fadhino oo wareysiga toos ugu baxayo oo idinka xarunni ah waxay sheegtay in caruur halkan aada wax ku bartaan oo weliba si bilaasha waxyaabaha bartaan maxaa kamid ah caruurta maasha allah maxamedow waxaa la baraa af soomaaliga oo kale bay-adan aan degannahay inta badan dadkeeda aaday isiga liitaan dad aada u liito oo yacni aqoonta iyo maaragtay aanan awood aanan u lahayn ayaa jira marka waa af soomaaliga iyo xisaabta ayaan ka dhisnaa markaan af soomaaliga iyo xisaabta aan ka dhisno ay bartaan englishaan maarata ugu darnaa kadib markay englishka meel dhexaad ay ka gaaraan oo kale iskuulaadkan waaweyn ayaan maaragtay yani aan geynaa iskuulla aan ku xirannahay oo asxaabnahay aa jirto iskuulkaasaan yani si voluntary ah waxaan dhirahnaa labadan arday ama halkan arday bal waa si voluntary ahaan maarata noogu qaabila oo iyagana maarata asxaab baan nahay sidaasay maarata noogu yeelaan marka sidaasaan maaragtay wax aan u sameynaa haddii lacalla maaragtay culays kale uu jirana waxaan dhahnaa si discounti ahaan bal qeybna anaga ka dhiibayno qeybna iyaga iska dhiibayo marka nidaamkaas yaa discount ahaan maarata noola sameeyaa marka nidaamkaas wax u kala dibirnaa yani hadda awood aan iskuul weyn aan ku sameyno oo nidaami ah oo hadda ma lihini alxamdulilah marka bareebadkaanan isdhahnay bal inaan ku saacidno ardayda iskuul weyn hadday u baahdaan bal asxaab kale maaragtay iyagana aan codsi u dirsan marka nidaamkaasaan ku shaqeynaa maasha allah markii si loo fiirsho ururada dhammaan dalka ka jira way adag tahay urur inuu jeebkiisa iska wado oo haddana waqti dheer uu shaqeeyo lacagaha markaa isku dardartaan oo ay sheegtay markaas sii fiirisay ma yahay ama ma u eg tahayba wax mustaqbalka idin sii dhaqaajin doona maadaama $1 iyo $2 oo koox idinkan ay ka tirsanaa ka qaadaan in idinka naftigeena aada wax buuran ay nila noqoto dabcan inayna suurgeleen mana suurgelayso siday tahayba marka aragti ahaan lacagaha idinkaa iska arurinaysa ururkiina in meel dheer aad ku tegi kartaa mustaqbalka ma kula tahay hadaad gacan aada helin maasha allah maxamed aada u mahadsan tahay waxaa waaye horta anaga mar walba waxaan u taagannahay yani baahidaas markaas muuqata sidii yani 50% xataa even lagu xalin lahaa yani ma wada xalin karno baahidaas maarata oo idil oo qofka haysata laakiin bal inay maarata dhiig joojin ahaan wixii ay u noqdaan oo anagana aan isku muujino oo yani dhalinyaro maanta u taagan inay dadkooda horumariyaan aan nahay aan isku muujino halahaasaan u sameynaynaa maayna hadda awood hadda yani qofka baahidiisa oo idil yani aan ku xalina mayno maxaa yeele qofka markaad rabto inaad baahidiisa xaliso english maamaha englisha waxay tidhaahdaa qofka yani maarata intaad siin lahayd cunto iyo aad sii lahayd waxaa ka wanaagsan inaad siiso makaalin oo maarata badda kalluunka kaga dabto waxa ugu wanaagsan maxaa yeele qofkaas wuu kaa mashquulay soo ma laakiin maanta markii aad siiso beritan uu u baahan yahay beri dambe u baahan yahay waxa waaye maarata qofka bini aadinkana calooshiisa yani ma buuxdo ma buuxiso waxaan maarata turaab ka ahayn caraab buuxiso marka waxaa aada weli aan sii jeclaan lahayn in yani dadka oo noocaas ah inaan u sameyno shaqooyin awoodiya gaarin mayne in shaqooyin loo sameeyo business loo sameeyo kii badda yaqaano maarata maqaalin iyo shabaq iyo shabaakad oo wax ku dabto kalluun ku dabto loo sameeyo kii beeraley ee beertiisa lagu fangareeyo waxawaa laisma soo gaari lahayn laakiin hadda sida hay-adaha oo internationalka qaarkood sameeyaan oo kale markii ay duruufo dhibaato adag ee dhacdo kale ayaa waxay keenayaan maxay markaasay maarata gargaar keenayaan gargaarkii qofkii waa siisay uu ka dhammaaday haddana weli wuxuu usii baahan yahay gargaar kale usii baahan yahay marka waxaan leeyahay waxaa aada ugu wanaagsan in qofka shaqo abuur loo sameeyo
sidaas aad u wanaagsan maasha allah. gabagabada barnaamijkaan soo gaarnay maadaama aad dooneysaan dad walaalihiina Soomaaliyeed oo tabaaliseen caawisaan weli ma la xiriirteen dowlad ama hay-ad intaa la xiriirteen baahidiin ma u bandhigteen si idinkana qarashaadka iyo wax markaas idinka jeebkiina ka baxaya u yaraato horna u socotaan? maasha allah maxamed aad aad u mahadsan tahay. su-aashaan horena waa kaaga jawaabay saan dareemayo. hay-ado aan la xiriirnay way jiraan. hay-adaha markaad la xiriirtana ma fududa oo waxa waaye ilaa aad ka caajisto ayaa maxaa la dhihi jiray yani lagu meermeerinayaa. dokumentiya keena, dokumentiyada waa geynay, qaabka u shaqaysiin wax dhan waa geynay ilaa ay haddeerna maaragtay xeed wax jawaab cad ah ilaa hadda aan ka haynan ma jirto. waxaan codsanaynaa ka midnimo ahaan ururkani in yani maaragtay ay bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba ay maaragtay soo saacidaan. maxaa yeelay anaga waxaan nahay dhalinyaro wax baratay oo maantana ikhtiraacas la imaatay iyagoo aan waxba haysanin oo sabool ah oo maxaa la dhihi jiray maaragtay kisti yaroo maanta ay qaataan ee kala bar maaragtay raba inay walaalahooda ku saacidaan. marka waxaan leenahay dadka yani ilaahay wax u dhiibay ama wax siiyey inay na soo saacidaan si yani walaalaheena oo aan babixino. maxaa yeelay yani annaga waxaan arkaynaa bulshadii aan ku dhex jirnaa baahiyaadka annaga waa arkaynaa ay qabaan. waxaa jira dad yani guryaha maaragtay xanuunsan oo guryaha ku jiro oo maanta aanan awoodin isbitaal iyo wax maaragtay lacag oo isaga bixiyaan aanan awoodinaa jiro. waxaa jira dad yani maaragtay waxay cunaan aanan haysanin ayaa jiro oo guryaha ku qarsan. marka waxaasoo dhan anaga u jeedno bulshadii aan ku dhex jirnaa. marka waxaan codsanaynaa in anaga yani nala taageero oo investment nagula sameeyo oo nala bushgareeyo kor maaragtay noola qaado si yani walaalahaasi baahida qaba aan insha allahu aan yani u haqabtirno. sidaasaan codsan lahayn shaqadiina saas noogu socoto. iyo ururka ujeediin meesha ku shaqeynayo waa meel yani waa iskuol oo private ah waaye xafiis waa. marka in yani xafiis maaragta loo sameeyo qalabyo badan waxaan u baahannahay oo kale kaamirooyin iyo wax baan u baahannahay si aan bulshada ugu bandhigno waxqabadkii maaragta aan sameyn aan bulshada ugu bandhigno iyo waxyaabo kaloo maaragtay yani oo haddeer inta lagu soo koobi karin oo aan u baahannahay anaga inaan bulshadii aan ku horumarino. marka intaas ayaan codsan lahaa insha allah. gudoomiye waqtigaan waan kaaga mahadcelinaya. maasha allah adaa mudan dhammaan muqdisho cable waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin sida wacan barnaamijkan aad ila soo wadaagtiin insha allah. waa mahadsantahay. waa tahay daawadayaal halkaa waxaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii sooyaalka nolosha oo toddobaadkan marti ugu ahaa gudoomiyaha ururka samafalka midnimo cali xasan maxamed oo waa nin dhalinyaraha isla markaasna hadaf dheer leh doonayana inuu dhaqaajiyo ururkan. gudoomiyahana waxyaabo kala duwan oo ururku qabta ayuu noo sharaxay. waan filayaa muddada 30 daqiiqadeed aan isla fadhinay inaad wax badan afkiisa aad ka hesheen. waana nin ay ka go-an tahay in dhalinta Soomaaliyeed iyo dadka baahan iyo dadka jilicsanba inuu u adeego isaga iyo kooxda la shaqeysaba. markale waqtigiisa waan ugu mahadcelinayaa. barnaamijkana toddobaadkan daawadayaal waxaa idiin soo saaray oo alaaba aad kaga barateen anigoo Maxamed Cabdullaahi Jameeka. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maada ka gaartay saaxiibkay Cabduqaadir Iska oo xagga farsamada ii gacan siinayay muddada 30 daqiiqo hawada ku jirana ii taagnaa isla markaasna kaamirada qurxoon waqti geliyay. ani isku duuban daawadayaal waxaan idinkaga tagnaa barnaamijka mid lamid ah toddobaadka noo xiga iyo sooyaalka nolosha. amaan Allah.